Assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu National TV idin hayo. Qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay Ruushka oo weerar cir iyo dhul ah ku qaaday dalka Ukraine. Qasaaro xoog leh oo jira iyo reer galbeedka oo ku hanjabay in ay bixin doonaan jawaab adag ayaad warkeena ku daawan doontaan. Ukraine waxay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Ruushka xil uu weeraray dalkeeda. wararkeena kalena waxaa ka mid ah jahwareer xoog leh oo ka taagan kursigii uu ku guuleystay Fahad Yaasiin kadib markii guddiga xalinta khilaafaadka ay ku kala qaybsameen fasaxidda kursigaasi. Gudoomiye Cumar Filish oo shaaciyay in magaalada Muqdisho ay ka jirto arrin ka halis badan qaraxyada ka dhaca magaalada. Sidoo kale waxaad warkeena ku daawan doontaan midowga Yurub oo ciqaab aan horay loo arag ugu hanjabay Ruushka kadib weerarkii Ukraine. wararkaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa. waa khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay 24 bisha Febraayo sanadka 2022. fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka. sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan. haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waan kaaga mahadcelinayaa. u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi. waa tahay aan ku bilaabo warkeena. Ruushka ayaa weerar cir iyo dhul ah ku qaaday dalka Ukraine oo uu maalmihii ugu dambeeyay ku daabulayay ciidamo aad u tiro badan. ciidamada Ruushka ayaa gantaalo ku garaacay magaalooyin badan oo Ukraine ka tirsan sida ay sheegeen saraakiisha iyo warbaahinta. kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu fasaxay waxa uu ugu yeeray howlgal military oo gaar ah oo laga fuliyo bariga dalkaasi. waxyar kadib markii uu Putin ka hadlay khudbad laga sii daayay TV-ga qaranka Ruushka ayaa waxaa laga maqlayay qaraxyo caasimadda Ukraine ee Kiev. rasaas ayaa ka dhacaysa meel u dhow garoonka diyaaradaha ee caasimadda sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Interfax. waxaana magaalada laga maqlayay dhawaqa digniinta ah weerarada. Putin waxa uu hadda bilaabay duulaan buuxa oo uu ku qaaday Ukraine. magaalooyinka nabdoon ee Ukraine waxaa ku socda duqeymo ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine. militariga Ruushka ayaa sheegay in ay duqeeyeen saldhigyada ciidamada cirka ee Ukraine iyo goobaha kale ee militariga aysan bartilmaameysan goobaha ay dadku ku badan yihiin. waxaana sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ay militarigooda isticmaaleen hub aan waxyeelo gaarsiin dadka shacabka ah. Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo xulafadiisa NATO inay iska indhatireen dalabaadka Ruushka ee looga hortagayo in Ukraine ay ku biirto NATO iyo damaanad qaadka amniga Ruushka. haddaan eegno markan wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno dalka Ruushka, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu hub siin doono cid walba oo doonaysa sida laga soo xigtay warbaahinta. sidoo kale Ukraine ayaa si rasmi ah xiriirka diblomaasiyadeed ugu jartay Ruushka kadib duulaankii uu ku qaaday dalkeeda sida uu shir jaraa'id uga dhawaaqay madaxweyne Volodymyr Zelensky. qasaaraha duqeynta Ruushka haddaan eegno, booliiska dalka Ukraine ayaa sheegay in ilaa hadda ay 7 qof ku dhimatay duqeymaha Ruushka. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in weerarka lagu qaaday saldhig military oo ku yaala duleedka Odessa lagu dilay 6 qof, tiro inta ka badanna lagu dhaawacay. 19 qof ayaa la sheegay in sidoo kale la la'yahay. wararka qaar ayaa sheegaya in 1 qof uu ku dhintay magaalada Mariupol. dhinaca kale wararka Ruushka intaan ka bixin, Ruushka waxay wajahaysaa go'doomin aan horay loo arag sababo la xiriira weerarka ay ku qaaday Ukraine. waxaana la saari doonaa cunaqabateeyadii ugu xooganaa ee midowga Yurub uu soo rogi doono abid. waxaa sidaasi yiri madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ururkan Joseph Borrell. tani ma ahan su'aal ururo, tani ma ahan su'aal ciyaar awood diblomaasiyadeed, tani waa arrin nolol iyo geeri ah, tani waa mustaqbalka bulshadeena ayuu yiri madaxa guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen oo ka dhinac hadlaysay ayaa iyana sheegtay in xayiraadaha cusub ee ka dhanka ah Ruushka lagu go'aamin doono shir degdeg ah oo maanta dhacaya. wixii ku soo kordha xaaladda Ruushka iyo Ukraine wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan. qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan. si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka, subscribe saar National TV kadibna fura gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. Muqdisho haddaan u soo laabano,
xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaa ku kala qaybsamay fasaxa ay qaybtooda fasaxeen kursiga Hob Ewer 86 oo axadii la soo dhaafay uu ku guuleystay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyadoona uu kursigan ka mid ahaa ilaa 6 kursi oo maalintaasi lagu doortay magaalada Beledweyne. warqad lagu daabacay bogga guddiga xalinta khilaafaadka ee Facebook ayaa lagu shaaciyay in la fasaxay kursigaasi wax yar kadibna warqadii ayaa laga saaray bartii guddiga kadib markii uu xoogeystay khilaafka xubnaha guddiga iyo cadaadis la sheegay inuu soo wajahay. warqadan ayaa looga jawaabayay tallaabadii ay 2 maalin ka hor guddiga doorashooyinka heer federaal ku hakiyeen natiijada doorashada ee kursigaasi. wararku waxay sheegayaan in guddiga xalinta khilaafaadka ay markii horeba isku khilaafeen inaan warqadaasi lagu baahin baraha bulshada, taasi bedelkeedana in si toos ahi loogu diro guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashada Hirshabeelle. xog aan helnay waxay tilmaamaysaa in warqadaasi uu ka dambeeyay gudoomiyaha guddiga oo ku xiran Villa Soomaaliya balse ay ka soo horjeesteen xubnaha kale ee guddiga. ilo wareedyo ayaa sidoo kale sheegaya in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu guddiga xalinta khilaafaadka ku cadaadiyay in ay warqadaasi ka saaraan bogooda. warbaahinta ayaa fahamsan in guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka aanay ahayn kuwa madax bannaan marka aad eegto saameynta ay ku leeyihiin labada xafiis ee dalka ugu sareeya, waana mid ka turjumaysa sida ay u macno beelayaan waajibaadkii loo igmaday guddiyadaasi. khilaafkan ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaa ku soo aadaya xilli ay maalintii Jimcaha ku eg tahay muddada lagu heshiiyey in la soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka tiyo ay muuqato inaanan wadadeedii lahaynin. ilaa ay hadda kuraasta golaha shacabka ee la doortay ayaa ah 175 kursi oo 38 ka mid ah ay haween ku soo baxeen, waxaana weli harsan 100 kursi. markasta National TV nagala soco waxaad heli doontaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho sida ay ino xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. qaraxa oo ahaa miino ayaa si gaar ah uga dhacay wadada warshadaha, waxaana la sheegay in lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. kadib qaraxa ciidamada ayaa furay rasaas waxayna xireen dhaqdhaqaaqa meesha ay wax ka dhaceen sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal lidi ku ah amniga oo maalmihii u dambeeyay ka dhacayay gudaha caasimadda, kuwaasi oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac. weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah, waxaana weli ka socota dalka doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. waa hagaag gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo khudbad ka jeediyay kulan ka dhacay degmada Dharkeenle ayaa ka hadlay arrimaha ammaanka ee Muqdisho. Cumar Filish ayaa sheegay in maalin waliba loo soo gudbiyo xogta qaraxyada iyo dilalka ka dhaca gudaha caasimadda, balse wuxuu tilmaamay inay haatan ka halis badan yihiin dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka isticmaala maandooriyaha sidoo hadalka u dhigay. degmooyinka gobolka Banaadir waxa dhacdooyinka ka dhaca maalin walba wixii dhaca 24 saac waxaa la ii soo gudbiyaa qaraxyada dhaca. kuwa madax jabiska bistooladleeda ayaa wax disha, yacni dhibaatooyinka kale ayay abuuraan. waxaasi wax ka khasaare badan oo aan la ogeyn ayaa jira. waa dadka daroogaysan dhibaatooyinka ay geysteen ama ay geystaan, ayuu yiri duqa Muqdisho. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dhibaatooyinka maandooriyaha ku hayo bulshada ay 5 jeer ka badan yihiin falalka ay geystaan kuwa isqarxinaya ama wax dilaya. duqa Muqdisho ayaa fariin u diray dadka Soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan la dagaalanka maandooriyaha iyo kuwa cadowga ku ah noloshooda. hadalkan wuxuu imaanayaa iyadoo toddobaadyadii u dambeeyay ay kordheen dhibaatooyinka amni dari ee ka jira caasimadda oo ay haatan ka socoto doorasho guud. waa hagaag daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. inta ku kulmayna wararkeena soo socdana Hello,